madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka hadlay bandhigga carwo caafimaad oo magaalada Hargeysa lagu qabtay waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan komishanka doorashooyinka ee cusub oo ay dhawaan xisbiyadu mucaaradku ay sheegeen in aanay wax wada shaqayn ah la yeelan doonin madaxweyne Biixi ayaa komishanka cusub ka difaacay eedaha xisbiyada mucaaradka waxaana uu sheegay in komishanka cusub xulistiisa iyo ansixintiisaba loo maray hanaan sharciga waafaqsan waxaana uu madaxweyne Biixi si gaar ah ugu jawaabay hadlo dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro maalmahan waxa maqlaysaa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharciga la jabiyay raacimada go'aanka baarlamaanka soo baxay dartiba sharciga laga dooday madaxweynaha maroosaday kartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax tago inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay dhahdeen komishanka cusub ee doctor shaqeynayna waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyay heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiiyey haddii qodobka ugu dooda waxay dhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa daba laga dhigay haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anugu mana saxeeyo qodobkaa mana ogi kumanana heshiinin oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda hoos soo barigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyin annaga khayr daranay haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee waxa wanaagsan ummadda markaa doonaysa wax xun u sheeg qodobkaa laguma heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto xubnada cusub sababta loogu dari waayo kuwii hore yaan lagu soo celinna waa sharci aanaan dhaafkirin haddaan xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxa saxeexay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga qaranka wadani gudoomiyaheenii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddiga guurtida waa ixtiraamayna saxiixiisa waa la raacaya isagaa saxay mudane gudoomiye Cabdiraxmaan ummadda uu soo bandhig labada qodob haddii wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeyey ma qodobka waa baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubinta annagaa diidan haddaan lagu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorasho geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu talo uu mararsadaa waa kaliitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana waa qodob isu keenay sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxa soo jeedinaya guurtida mid waxa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweygii midna arrintiisku waa faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wicid ku keenay waan gudbiyey guurta labadiina waan gudbiyey saddexdii aniga iga noqotana waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo dantay riixinaya ama binaadaan qaldamada waxa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaasi qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu celiyey yeeri maynu wadani yidhi diktaatoorida ka weyn baarlamaanka yeeri maayo xagga lagu arkay dee cabdiraxmaan ka filayay inuu wanaagsan oo shibir lahaay qolo jawaab wataa laga filayay mudane Cabdiraxmaan adoo gudoomiyihii baarlamaanka ugu weynaa saxeexaya ee dalka 10 sano sharciga saxeexay adoo gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurto sharafeed milkiye maamus ku leh dad arrinta ka fiirsan yeeri maayo baarlamaanku waa arrin adag war baradina ka garan qashci weeru anagu baarlamaanku wuxuu waa ogol haduu kaaga soo celiyo waa ogol labada qodob garta ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruucda u raacno aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin waru yahay da waru yahayba in laga sii daayo midiyaha dhaqan gooniya ma dhaqankeena muu ahay dhaqan la daawo ugu farxan maaha in la iscaawo wax badan baynu sunahay haddaynu ku dayno gaalada dimuqraadiyadda maraykanka haddaynu raacnayo waxa la midka ah ingiriiska yiri waa ku jabayna iyagu dimuqraadiyaddu waxay gaadheen taa laba nin hays kursadeen
haddaynu tooda ku dheerin halkaas inala gelaysaa bal hadda loo fiirsado waa dimuqraadiya waxaa doonaan samaynayaa war bal ha loo fiirsado dadka raacaya dhalinyarada weliba taalantaasaan ka leeyahay waxaan kusoo gabagabeynayaa somaliland loo warwari maayo dowladda xamar ka dhisan oo aad og tihiin inta weerare nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekedaa berbera mashruucii irsa dekedaa laga bilaabay waxay isu taagtay dowladda ciraaqaadka carabtaan u jaraynaa mooday ka dacweysa waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa la odhan jiray special fund for somaliland oo yurubiyanku isugu tageen oo somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen annagaa la ictiraafsan yahay oo waa gobol laga mid ah cunaha la qabanaya haddaynu diyaaraha gudbinina waxa ku xigtay ekaw isku dayaan diyaaradu aan halka soo marin waxa ka mid ahay dowladda somaliland soo dhaweysa ama marti qaado in cilaaqaadka loo jaroonayaa war waxaa xubno gacanta nagu jira meegaa geeda in la soo dhaweysa oo soo dhaweysaa waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen somaliland gudaheeda ay lahayd seega u degtaan meel somaliland ka mid ah waxaan wax laga naxaa in xisbiga wadani rag ka mid ah ammaanahan iswa taagaan oo kula duudhacaan xamar maanta warbato waxaas weysaba ammaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaargaroy waa caliga koobaad oo egta ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airboortka ee maanta xamar ay ka gubanaysay isagoo oon xukumin meesha la yidhahdo sila soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan soomaaliyeed maha iska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyaynu taasaynu ammaan u raacnaa waxay la tahay meelaha qaarkoodna aan hubsanno oo iyaynaan ku dhicin cadowgeeda haweenkiisa aanu ka digtanaano waxaan ka rajeynaya aan ku wadaarayaa aqoon-yahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkidu khasaaru noqonaya dowladda xamar ka dhisan oo aad og tihiin inta weerare nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekedaa berbera mashruucii irsa dekedaa laga bilaabay waxay isu taagtay dowladda ciraaqaadka carabtaan u jaraynaa mooday ka dacweysa waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa la odhan jiray special fund for somaliland oo yurubiyanku isugu tageen oo somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen annagaa la ictiraafsan yahay oo waa gobol laga mid ah cunaha la qabanaya haddaynu diyaaraha gudbinina waxa ku xigtay ekaw isku dayaan diyaaradu aan halka soo marin waxa ka mid ahay dowladda somaliland soo dhaweysa ama marti qaado in cilaaqaadka loo jaroonayaa war waxaa xubno gacanta nagu jira meegaa geeda in la soo dhaweysa oo soo dhaweysaa waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen somaliland gudaheeda ay lahayd seega u degtaan meel somaliland ka mid ah waxaan wax laga naxaa in xisbiga wadani rag ka mid ah ammaanahan iswa taagaan oo kula duudhacaan xamar maanta warbato waxaas weysaba ammaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaargaroy waa caliga koobaad oo egta ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airboortka ee maanta xamar ay ka gubanaysay isagoo oon xukumin meesha la yidhahdo sila soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan soomaaliyeed maha iska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyaynu taasaynu ammaan u raacnaa waxay la tahay meelaha qaarkoodna aan hubsanno oo iyaynaan ku dhicin cadowgeeda haweenkiisa aanu ka digtanaano sidoo kale madaxweynaha ayaa mar kale ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay dagaal ku soo wado Somaliland isla markaana ay dhinacooda diyaar u yihiin Soomaaliya Ethiopia intaba waa la ictiraafsan intaba waa la taageeraa intaba baanka adduunka intaba waa la garab taagay Somaliland soddon sano ilaahay mooyee ciidan ma ictiraafsana ciidan waxuba ogola waliba cadow xoog oo la dagaalamay haddana bifadlilaahi wa xamdihi ilaahay iyo midiisa oo midaysan iyo tashigeena ayaan ku taageerno walba salka galna waxa ka hadlay Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn dhixkii midooday ay ka dutay midnimadi istilay midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar u dhisatay 3 sanadood waa la ictiraafa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo quriyay 140 milyan bus iska dhaaf jimcada qurba ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg waxaa soo dhigay la galiyay oo inta soo garan haysata oo si walba loo taageeray maanta kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalmo way xidha waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda Puntland baa u soo wata maanta la qarxiyay waxaana wadada dawladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas soo dhawada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamayay waxay ka wadaa way waxa soo tababar kuwa ku soo tababaraysa oo ku soo diyaar garoobisa Soomaaliland oo soo diyaarta
colaadeeda oo ay ku soo maqanta Soomaaliland waa ku gaamurtay inay cadawga iska celiso diyaar baan waa aragnaa waxa soo wada farmaajo Cabdiraxiin Mooli Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.